qisada filimkeena ayaa maanta waxay ku bilaaban doontaa ka waran adiga oo gabar xiriir la sameeyo ama jeclaada gabartaas uu dhalay nin gaangisti ah sidoo kale ka soo jeeda boqortooyada caalamka ugu weyn mid kamid ah ninkaas oo waliba ah nin halisa sidoo kale dilaa ah bal ka waran hadaa fursadaas heshid oo hadana aad gabartii ku dhedheesho ama aad gabartii xumayso ama sometimes aad gabartii saas ahayd oo ninkaas camal ah uu dhalay aad disho fadlan inteenan filimkeena guda gelin subscribe noo saar waanad maasantiin let's go filimkeena aan guda gulo ninkaana u jeedin waa Dangi waa ninka ah gaangistarka sidoo kale tana ah kingiga ama boqortooyada sidoo kale waa hantiile tana waa xaaskiisa Yoon sa u jeedin hadda Master Dangi wuxuu la hadlaa xaaskiisa wuxuuna sheegayaa inuu nin weyn shir la qaadanayo uuna rabo inuu dhiso mid kamid ah dhismayaasha ugu dhaadheer wadanka uu joogo oo ah Kooriyada Waqooyi hadda markaan wuxuu la kulmaa nin la dhaho Jangi ninkaas oo ah ninka ku dayi doona ama ku keeni doona gabarta uu dhalay Dangi oo ah ninka dhanay gaangistarka ah palaan aragno waxa dhacay saad u jeedin Jangi hooyada ayuu la hadlayaa hooyada ayuu baranayaa wuxuuna isku dayayaa inuu la sheekaysto wuxuuga dabeecadeeda uu fahmo laakiin familkan ma yaqaan lacag ayaa la sinaaniyo lacagtan qaado ayaa la dhaha uyaaba lacagtan lagu sii maxaa wax lacagtii ayaa la cuntii waxa soo kulcuna hadda u jeedin Dangi uu soo baxay gaari ayuu soo qaatay wuxuuna isku dayay inuu gurigiisa soo aado wuuna soo baxay markuu soo baxay lacag kab uu jecel yahay oo meel dheer saar aka kabti soo qaaday isna kabti soo qaastay laakiin maxaa ka raaci doona Dangi uu soo dhacaa wuxuuna ku soo dhacaa Jangi agtiisa sidaas ayuuna ku dhaawacmaa waxaana loola carari doonaa mid kamid ah isbitaalada dalka Kooriyada Waqooyi isbitaal ayaa la geenayaa waa u jeedin dhaawac aad u daran ayuu noqday sidaas daraadeed Jangi markaan wuxuu iskala saaxiibi doonaa gabartii mana oga familkan inay yihiin dab iyo holac ayna yihiin wa aan lagu dheeli karin laakiin asbaxaas ma faasana hadda Dangi oo ah ninkii gaangistarka ah ama boqortooyada ah waxa la isku dayaa in xaalkiisa la dacaalo oo la bogsiyo ama la daweeyo soo jeedina aabis ayaa aad u oonaya aadna u murugoonaya Jangi ayaa imaanaya wuu fiirnaa ninkii lacagta ku siiyo oo dhaawac ayuu arkaa asixita aad iyo aad ayuu murugoonaya laakiin waxba uma qaban karo ninka saad u jeedin wuu suuxsiin ma soo kici karo hada sida u jeedin meeshaan u jeedin waxa lagu cabiraa dhiigiisa waxyaalaha doctoradiisadii ayaa loo tagaa doctorasada waxay dhahaysaa ninkan aad iyo aad u jirin yahay aad iyo aad inuu xanuunsan yahay sayahay dhiig ayaa jirkiisa ku furmay madax ayaa xanuunaya feeraha qaraa jaban jirkana way ay daldalaaceen meeshaan aad u jeedin waxa ku cunteen toona ama cunto wada jira ku wadaagi doonaan Jangi iyo ninkan oo professor Jangi waxa lagu dhihi doonaa niyahonin maxaad ka barataa iskuulka wali wuxuu dhaca waxaan aan baran lahaa ma aanan go'aansanin oo ninkan wuxuu kala jeeday maxaad jaamacadda ka baran doontaa hadda waa ardadii gabartaan u jeedin waa Yoon ninkan u jeedin waa Jangi hadda laga bilaabo Jangi wuxuu isku day doonaa inuu beegsado gabartii holaciya dabka ahayd ee Yoon wuu iskala sheekaysana wuu iskala qosla ninkan u jeedin oo Fooli la dhaho ninkan Fooli mar walbaasna wuxuu isku dayaa inuu gabartaan dulmiyo Jangi wuxuu isku dayaa maadaama gabartaan rabo inuu xiriir la sameeyo inuu ka celiyo laakiin labadooda maxay ku dhilayaan dab iyo holac sa u jeedin hadda ninka la Jangi dulmiga ayuu feeraya wuxuu feeraa gabartaan kan leex waxaan isku dagaalan waa halkaan gabar ayaa cayrsanayaan gabartan waxay isaga malayaan gabdhaha faqiiriinta ah kuwaasoo kaliya iskuulka iska dhigta laakiin muuga hadda xasuus ay galayaa uu arkaa ninkii saaxiibkiisa soo dhacayo oo dhaawaca Dangina ilaa adeer isbitaal ayuu ku jira isbitaal ayuu ku dhaawacan yahay oo ilaa adeer uu miir daboolay hadda waxa sheekaysanaa waxa waaye mid kamida kuwa college ka dhigta iyo Jangi gabarta u jeedin oo Yoon waatan Yoon waxa isku dayay inay waxoogaa jacayl u qaado ninka la dhahay Hooli laakiin Hooliyo maad ka joogtid dabkan iyo holacaan inta badan dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ama caalamka ayaa ku dhacda in ay shukaansadaan gabar oo la dhashteen wiilal aad u dhib badan ama wiilal Mooriyaana kuwaasoo dadka nafta dhaafiyo saalahaan haddii aad gabar la saaxiibaysid iska fiiri marka koowaad gabarta familkeeda dadkeeda asxaabteeda iyo walaaleed waa inaad soo baratid haddii kale qisadan ku dhacday Jangi iyo saaxiibkiis ayaa kugu dhacayso hadda waxay ka sheekaysanayaan ama ay isweydiinayaan ninkii Dangi ahaa maxaa ku dhacay waxa saasta waxa waa Jangi iyo gabarta uu saaxiibka leeyahay sidoo kale maxaa la Professor Wool wuxuu dhahayaa
dhakhaatiirtu waa la sheekaystay waana la hadlay waxaana lee sheegay ninkaasi inuu miyir daboolan yahay waxayna dhaheen wuuna bogsan karaa ama ma bogsan karo labadoo way dhici kartaa laakiin anaga waa dadaalna hadda saa u jeedin waxa ay kala tuureen gabartii yoon kala tuurkaas laakiin maxaa ka dhici doona jaangay wuxuu imaanaa yoone waa ku jecla ayuu dhahaya way ka orday hooyada ay arkayso hooyada way dhahaysaa gabarteeda maxaa ka rabtaa islaan miskiin ay isaga dhigay way sirsire mooga maaninkaanu dabiyo halocu yahay hadda way soo baxee saaxiibkii kale ay la kulmeen maxaa la John waa la burunaa jaangin waa la burunaa jaangio bax ayaa la mar laayo jaang wuxuu soo laabanayaa tii usoo la tinta ayuu ka jiidaa uu ka xanaajinaa war jaangio ma joogtid gabarta ku ciyaaraysid waa gabar naar iyo cadaab ah laakiin asaga ma fahasara marka uu ku dheeldheelay uu ka xanaajiyey ayada laakiin markaan jaangi in ay jeclaato ama waqti la qaato ay isku dayay saa u jeedin jaangi saaxiibkiis ayaa wuxuu dhacay inuu gabartan xunta ah oo ebarkeeda ma adiga wax ku dhaas ma adiga wax ku sheeg soo kale professorka oo mana warniyo gabarta xunta maxay ka sameyn kartaa maxay ku dhihi kartaa u dhaha gabartan ma saartay yeesh maga oogid miyaa inuu aabaheed kaliya ku maqan yahay inuu suuxsan yahay oo bari kamaala soo bogsan karo hadda markaan saa u jeedin yoon way fikraysaa waxay isku dayaysaa maxaa la inay u imaato ninkii laayay helmi ka u imaato waxay ku dhahaysaa ni ahaanin aniga join markaan waxgaa waa ka helayaa laakiin waxaas inaan u tababarto oo aan awood isku yeelo soo asaad oo tababaran kale marka ayada waxay isku dayaysaa inay training soo jeedin training ay sameynaysaa xoog iyo awood ay isku yeelaysaa asixta uu isdhiga handsome ama nin qurux loo ay iska dhigaa uu soo agmara markii arkaan ardayda dadka dhan way yaabaan war ninkaas uu yaalo saan qurux ban jaangimiya way ayaga dhan aad u yaabaan hooyada xitaa la jaango qurux banaan la cuntay afka uga daaday markaan gabarta maadaama xitaa waxa qaaday gabdhaha kale ay qaab movie ama inay film soo madhigas u dilaysa asixta uu la cajaba oo inuu jeclaada ayuu isku dayayaa oo gabdhaha dhan ay kala turasa ayada sababtoo ah laftirkeeda tababar ay soo sameysay markaan waxay isku dayaysaa inay cunto iyo waxaas ay kariso cunto waxay karinaysaa macallin oo talyaaniga oo baasti waxaas hooyadeed ayaa ku qaslaysaa sidoo kale jaango ku qaslaa sidoo kale professorka dadka dhan way ku qaslayaan kaliya waxay saan u sameynaysaa wax kala maan waxay saan u sameynaysaa macallin yoon in ay u tababarato asxaabta oo iska celiso oo inay aabaheed ku dashan sir kalena way wadata ayada oo tababar kale inay aabaheed u sheegtan way rabtaa maalinku aabaheed soo bogsado waa maalinkii lagu kala tegi lahaa sida aad taqaaniinna wadamada caalamka waxaa la isugu faanaa yaa gaangister ah yaa awood leh oo caalamka sida Soomaaliya oo kaleeta ma aha caalamka waxaa ka jira wax la yiraahdo gaangist waxaaso aad iyo aad looga cabsado marka ninka maadaama hadda uu gaangis yahay ayaga aad ay uga cabsaneen hadda sawjida jaangi hooyada ayuu la kulmaa hooyada markuu la kulmo si caadi u sagala sheekaysana hadda jaangi iyo waxa soo baxeen iyo gabartii marka ay soo baxeen waxa minraan oo maanaay markuu maado xulay labadiina bariyaan waa isku haysatiin miya laba bariyaan waa israbtiin miya waa isjeceshiin miya una ka taga aad la fajacayaan kabacdan waxa dhahay ninkaas ma ka takhalusna oo anaga ma dilna waxa isku dayeen inay dilaan maamada ay la shtaan isku dayeen waxa dhahan qaar kamid ah ardada galaaska ayaa nagu afceli ma dilna oo ma iska celina laakiin waxa ku soo wajah waxaan dhanba ka weyn waxaan dhanba ka awood badan hadda sa u jeedin gabartii waxa ay dirbaaxaysaa nin kamid dhalinyaradii waxaana soo bursana ayada jaanga afska waa ku jecelahay ha iga tagin xoog inuu ku isku diyaa gabar miskiin iska dhiga xoog ku wadayo dhaha xooga ku qaadana xoog ayaa ku kaxaysana waana ku wadana mana ka cabsana ayuu dhaha laakiin maxaa ka raaci doon waxa ka raaci doonto mid kamid dhibaatooyinka ugu waaweyn taasoo ah inuu daangi soo kici doono ninkii gaangister kaan uu soo kici doono atooraha waxoogaa in loo naxariista ayaaba laga yaabaa sababtoo atooraha gabarta jacayl ayuu la sameeyaa waa loo imaaday waxaa loo soo diray tuumo waa nin uy walaala yihiin daanki ninkaas ayaa ayaga dhan beerka ka tumaysa u jeedin mid ayuu qabanaa beerka ayuu ka tumaa uu garaaca macalla gabarta uu tagayso meeshaan beerka iyo xabadka ayaa la iska garaaca waa la saxashirina professorka ayaa u maanayo warniyan waxaan soo maqlay gabartan inuu gaangisterka dhan ee magaalada aan joogno u dhalay gaangisterkaas xitaa waxaa ka cabsada madaxweynaha dalka dadka marka ay dalxiis ku imaadaanna loo sheego waxaa la warniyan gabartan gaangisterkaas dhalaa isku taabanina aniga gabartan quruxdeeda ku qaadan adow murugoona uu oyna wuxuu sameeyo ayuu garan weynayaa alla meeqa qof ayaa tan ku dhacday intaas dhan gabar masaakiina ku dheeldheel ama wax ku samee tan oo kale lagu dhigay hadda wuxuu sameeyay ayuu garan laayay welina la soo daangi miimaan hadda ayuu daangi imaanaya oo daangi inuu soo baxo caafimaad ka warraba ka waran markuu daangi imaado malma jir doonto maya meeshaanu daangi imaado waa lagu kala tagaa waana lagu kala yaaca hadda meeshaan ay isugu imaanaan daangi ayaa soo kacay soo jeedin ninka daangi soo jeedin ninka daangi uu soo kacay
ودadku xaal wareysanayaa wuxuu isku dayaa inuu maxaa dhacay ogaado waxa jira inuu ogaado problem hadduu jiro inuu ogaado maxaa la xaaskiisii oo ahayd Yoson uu la hadlaya dadka dhan buu la hadlay xaaladda ayuu ogaanayaa ilaa hadda ninka la Jang ma quusanaayo ninka Jang aad mujid waa la qabtay beer iyo xabadka laga garaaca waana la jarjara beerka xabadka laga garaaca maamada arkaysa soo la dilay maamada laftirkeeda xitaa wuu tagaysaa mujid ninka dhiig ka daadanay aadi maxaa ku geey gabar islaameed maxaa afaarida ku geli xaaska hab ayaa la siinaya kaalay macaanto shafka soo galay la dhaha anaa idin nool anaa gaangistar professorkii meesha ayuu ku murugoonaya awalba gabar dadkaas dhaleen fudeedkeedin ku jiro muxuu yahay maad baaritaan iskaga sameeyeen waad hadda gabartu iska faraxsan tahay laakiin meeshan professorku wiilka talada siinay laftirkiisa uu ooraya awal ayaa waxaa la dhahayay wax markaa sameynaysid baaritaan la isaga sameeyaa qisadan macnaha waxaa ka faa'iideynaa mar walba aad wax sameynaysid ama aad tala rabtid ama qof jeclaanaysid inaad marka koowaad baaritaan iskaga sameysid qisa laakiin adigu indhala oo iska socdaada sameynin mar walba waxaan baaritaan iskaga sameysidna waxaad ku guuleysanay waxaan hadafkaa leh inaad ka gaartid ama si dhib aad ku guuleysanay laakiin wax adoon ka fikirin oo indhala aan oo iska socda hadaa sameysid waxaa kugu dhici karto inaad guuldareysatid markaasna aad baa u murugaanay laakiin waxaan markaa baaritaan ku sameysid oo wuxuu yaa ogaatid waxaa laga yaabaa inaad guul ama guuldaro filatid markaad guul iyo guuldaro filatidna waxaad ku tashan kartaa inaad guuleysatid ama aad guuldarsatid weliga alla wax markaa sameeysid waa inaad marka kuwaad baaritaan iskaga sameysid marka aad baaritaan iskaga sameysid oo aad u baartid oo aad si wanaagsan u baartidna waxay keenay in aad guuleysatid sababta wixii aqoon dheeri ayaad u leedahay hadda filimka qisadana tan ayaa ka faa'iidi doona sa u jeedin hadda ninkii waa la dilay oo atoori dhan oo maxaa la Jang saas ayuu ku dhintay waxaana dilay gaangistarkii kaliya wuxuu u dhintay gabartaas daraadeed marka mar walba waa inaan isku dayn wax marka aan sameeyno inaan ka fiirsano channelkana u jeedina waxaan idin leenahay ku soo dhawaada waxaad ka faa'iidi doontiin mid kamid ah qisooyinada caalamka ugu cajiibsan waxaad ka faa'iidi doontiin qisooyin aan dhahay hadalka ay ugu dhigay qisooyin aad u badan kuwaas oo faa'iido gooniya idin yeelan doonaan waana aad uga faa'iidi doontiin waxaan idin ku codsanaa inaad subscribe noo saartiin sidoo kale aan nagu soo beertiin mar walba waxa isku day doona qisa aad wax ka faa'iideysan taasoo noloshina kor u qaadaysa inaad keeno waxaan ugu balana si maalina ama dheeli ah inaan la wadaagno qisooyin noloshina kor u qaadaya aad u mahadsantiin